barnaamijka ogaalka dunida. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى موائد جود مولاك ارعي. Assalamu alaikum, sir. My name is Ajay Vaishnav. I'm working in a catering in VIP Lounge. My question is from my family that everyone in all the books it's written that gods are same and God is one. When I say you Salah alaikum, you can say me that Hari Om or Hari Om Shanti. Salah alaikum means that maybe peace on you, and Om Shanti means that maybe peace on you. Then why can't you say that Om Shanti? walaalka su'aal wanaagsan buu weydiiyay oo ah inaan dhahno assalaamu calaykum om shanti sidoo kalena ay tahay nabadgelyo dushiina ha ahaato. waxaan ku leeyahay dhibaatadu shanti maaha ee waa om. mushkiladu waxay tahay hinduugu waxay aaminsan yihiin om inuu yahay ilaah. haddii aad u tarjunto assalaamu calaykum luqadda hindiga waxay noqonaysaa aabi shanti ho. wax dhiba ma leh haddaan dhahno assalaamu calaykum ama shanti, balse mushkiladu waa om. waxaan nagala rabo inaan ogaano waxa weeye marka aan leenahay assalaamu calaykum arintaasi waxaan ka dalbanaynaa allah, balse ereyga om wuxuu leeyahay micno kale, dadkuna fahamkiisa way ku kala duwan yihiin sidoo kale. haddaba markaad leedahay assalaamu calaykum waxaad allah weydiisanaysaa inay nabad soo degto, wax dhiba ma leh. balse markaan leenahay ereyga om dadku waxay u malaynayaan suurad xun. arrintaas amay ku saabsan tahay hinduu, amay ku saabsan tahay ilaah iyo wax lamid ah. sidaa darteed macnaheeda way ka leexanaysaa. xitaa haddaysan macnaheeda ka leexan waxaa waajiba in la caddeeyo. marka aad leedahay shanti wax dhiba ma leh. luqadda carabiga waxaan leenahay assalaamu calaykum, ingiliishka waa may peace be on you, hindigana waa aabay shanti ho. isla marka aad ku soo darayso erey sheegaya in salaantu ay ka imaanayso meel allah ahayn, markaasi way dhibaatadu. sidaa darteed waxaan ku rajaynayaa nabad dushaada ahaato walaal. waxaan ku rajaynayaa inaad nabad ku noolaato. Yes, sir. mahadsanid walaal.